kaga baxo gobolka Sanaag muddo 4 sano ah shaqooyin ba ka socday dad badan oo shacbiga ku dhintay oo ka badan 60 wali arintii may dhamaanin arintaasi waxay saameyn amni ku yeelatay dhammaan gobolka Sanaag arintaasi waxayna tusinaysaa awoodda xukuumadda Soomaaliland ama kulmiye hore ha noqdo ama kulmiye dambe ha noqdo oo 4 sanadood xal u waayay arintaas waxay muujinaysaa inay ku fashilmeen in arintan nabadeeyaan waxna ka qabtaan Soomaaliland markii ugu horeysay shaqada ka dhacdo ama colaad ka dhacdo maaha hore colaaday noo soo mareen beel la xiriira waddanka dagaal sokeeya ka dhacay jabhadayna soo xaraynay ba jiray si ka mid tahay wabar ba ka mid ah arintiisa la dhameeyay marka xukuumaddu daliil weyn bay ku leedahay iyadoo way aragnimada buuxda ay leenahay inay 4 sanadood arintii ciidanka wax ka qaban kari weeyday Somaliland arrimaha waxa lagu dhameyn jiray si xikmad maamul wada hadal iyo maamuus madaxweyne waxaana la isticmaalay xabad kasta oo bulshada midayn karta laguna dhamaynayo hawlahaas waxaan daraa in maanta marka la eego khudbadii madaxweynaha ugu dambeysay ayaan daro tahay in odaynimada maamuuskaas iyo xikmaddaas ay ka dhamaatay madaxtooyadii Soomaaliland madaxweynaha hadalkiisii ugu dambeeyay waxa ka mid ah in dulqaadka iyo doqonnimadu ay walaalihiin waxay la tahay ereygaas muwaadinka soo reer Soomaaliland dhigiisa ugu dhib waxaan halkan ka sheegi doonaa tixyaroo gabay aan ka soo qaatay gabaygii hadraaway suran loo oran jiray tixdaa iyo khudbadii madaxweynaha way isuula ka ekaadeen bal idinkuna way leeyihiin inay isu eegyihiin waxa ka mid ah marka uu la hadlayay Philippines xukumi jiray oo Marcos loo oran jiray iyo gabadh madaxweynenimada ku haysatay samarkii iyo dulqaadkii iyo naxariista badan bay dadku igu ogaadeen naftaa sugaysaan ma awoodahaygay yamyam iyo qadaad weyn xataa caanaleydii booc ugu tukubayaan markaan dhiiran waayaa laysii qodqodaya doofaarka ficilii naar loogu daayimi kol haddii dubay iyo waran duunkayga lala dhacay yaa dabarka igu xidhay horta maan dagaalamo anigu ma istaafaco madaxweynaha dulqaadkii baa iga dhamaaday talo maxaa ku xiga waa iska garanaysaa mar malaynaya bal idinkuna la qiyaas oo khudbadii madaxweynaha iyo tixda hadraawi ma isu eegiyiin waa ka xumahay dhacdadii ugu dambeysay ka dhacday ceelaf weyn ninkii ciidanka ahaa lagu dilay waana taxsiideynaya madaxweynuhu wuxuu askariga lagu dilay ceelaf weyn madaxweynuhu ma xusin in hooyo aan waxba galabsan oo aan hubsidan ciidanku xabad ku dilay wax la aqbali kara maaha qof aan hubaysnayn oo muwaadin ah oo weliba hooyaa oo weliba dumar ah in xabad lagu dilo lagana soo qaado inaa wax dhacay aana jirin ciidanka waa la ixtiraamaa waa xaaraan in wax loo geysto ciidanka ammaanka sidoo kale waa xaaraan in muwaadin aan hubaysnayn oo waxba galabsan xabad lagu dilo dabeedna laga soo qaado inaan waxba meesha ka dhicin waxaa kaloo hadalka madaxweynaha ka mid ahaa
inay jiraan beelo ka baqaya ceelaf weyn nabad baynu ka rabnaa odayaashii qaranka oo dhan baa u baxay arrintaasi arrin nabadda u adeegaysa maaha waxaad moodaa in kabriid ku qabanayso colaaddii halkaa ka jirtay iyo nabadayntii halkaa laga shiday waxay u egtay midiyo iyo mudacyo la isugu dhiibayo dadka waxaan qabaa in xalka sanaag aanu maanta ahayn xal military waxaan qabaa inaan xalka sanaag maanta ahayn xabad waxaan qabaa in gobolka sanaag maanta xalkiisu ahayn in janan loo diro waxaan qabaa in gobolka sanaag xalkiisu maanta yahay xal siyaasi ah iyo erge nabadeed xalka gobolka sanaag wuxuu ku jiraa oo furihiisu yahay in madaxweynuhu gacan siiyo odayaasha ergada ah ee salaadiinta ah ee cuqaasha ah ee ilaa Hargeysa iyo galbeedkeeda ka gurbaday ee maanta ku sugan gobolka si ay u soo afjaraan arrintaas xalka sanaag waxaan u arkaa in furihiisii jeebka madaxweynaha ku jiro oo ahaa inuu saamaxaad guud u fidiyo caare iyo inamada hubaysan ee la socda iyo in laga shaqeeyo heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee ceelaf weyn wada dega Somaliland jabhad humaysan uma baahna waanu cambaaraynaynaa in Somaliland ka abuurmaan jabhadaha hubaysan